caalamku ma jiro dal burbur dowladnimo uu ku dhacay oo asiga keligiis haddana ka soo kabtay. dal kasta oo burbur ku soo dhacay taariikhda wuxuu ku soo kabtay kaalmo caalamka uu ka helay. soomaaliyana dalkaas kama duwana. maraykankuna waxa uu yahay dalka ugu habboon ee kaalmada noocaasi laga soo raadsado ama bixiyaba. marka horta dee annaga dhinacaas kaalmada ah maraykanka waana intii soomaaliya burbursan uu soo siinaya, haddana waa midan cusub oo wejiga cusub gashay. laakiin waxa hadda annaga aan xoogga saarayna waxay tahay waa arrinta iskaashiga. dabcan annaga duruufaha maanta ku sugannahay kaalmaan u baahannahay, maraykankana uuna kaalmaynaya. dalka soomaaliyana guud ahaan dad aad iyo aad hani u ah waaye, haddii ay tahay xagga xoolaha, xagga badda, xagga khayraadka dhulka ku jiraahay, dhammaantiis waa dal dunidu maanta ay u baahan tahay. marka ma aha keliya soomaalida iyo annaga inaan baahannahay, lakiin annaga xataa waa naloo baahan yahay. marka baahidaas sidii aan isu weydaarsan lahayn, annagana waxaan u baahannahay aan u heli lahayn, ayaguna waxa ay nooga baahan yihin u heli lahaayeen. waayo waxaan aad iyo aad uga hadlaynaa horta oo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan maanta ay u wada ballansan yihin, u kulmayaan. laakiin dee guud ahaan annagu maraykanka si istraatiijika ah ayaan partnership inaan u dhisno ama cilaaqaad saaxiibtinimo ayaan hore isula garanay. tii unbaan maalin walba inaan wax kusii darno oo aan hore usii wadno ay muhiimadda ay tahay. shalay shabaab haddii ay rijimo badan iyo dhul badan oo soomaaliya ka tirsan ay ka talinayeen, maanta dhulkaasi wuu ku soo yaraanaya, muddo dhowna wuu sii dhammaanaya dhulkaasi. maadaama ay dhinacii milatariga ay arkeen in aanay u babac dhigi karin culeysyada iyo dagaalada lagu hayo, farsamadii ayay bedeleen oo dhinaca magaalooyinka sidii khaasatan magaalada muqdisho oo 2 milyan oo qof ay ku nooshahay inay soo dhex galaan oo ay wiilal dhallinyaraahoo dee maskaxda laga soo bedelay ay soo diraan oo ay u soo diraan inay dhintaan. dadka shabaabka ee hadda weerarka soo qaadahay waa dad loogu talagalay inaanay noqonayn bila soomaaliya. muhiimadda ugu weyn ay ka leeyihiinna inay bila soomaaliya qabsadaan ama madaxweynehay dilayaan ama xildhibaan baarlamaanka fadhiyay gelayaan ama un-ka muxuu ahay xeeradooda. ma aha muhiimadda ugu weyn waxay tahay oo wiilashaas ay u laynayaan waxay tahay inay helaan media muxuu ahay propaganda. shabaab dagaalkeeda wuxuu ku soo haray 90% media, 10% howlgallo ku soo haray. howlgalladaasoo hadda weliba kusoo koobmayo sida magaalooyinka waaweyn sida magaalada muqdisho oo kale oo ay u sahlan tahay inay dadka ku dhex milmaan o ku dhex dhuntaan. laakiin haddana maalin walba waxaa la fashiliyaa mashruuc ay wadeen. maalin walba waxaa lasoo qabqabtaa dad ayaga ah oo ama wax dilay. waad maqlaysay mediaha in public kuwa ku dhaqaaqay aniga 20 qofoodaan dilay, aniga 30aan dilay dhahayo oo qiranaya. waad garanaysaa ma dhici jirin horey dadka noocaas oo saas u qaatiliinta ama mujrimiinta u ah in inta lasoo qabta haddana lagu qanciyo weliba inay qirtaan oo maxkamadna la geeyo, kadibna cadaaladii sharcigu wuxuu qaba la marsiiyo. aniga aqalka villa soomaaliya lasoo weeraray dhib badan aniga iguma haydo, leanna villa soomaaliya ciidan ay leedahay, amniyay leedahay, hay-aday leedahay. taas markaa hay-ada dhammaa dowladda u xilsaartay amnigeedana wayna bruuf garayaan in amnigeedu sugan yahay oo way soo gaari kari waayeen, waana soo gaari kari waayeen meeshii ay rabeen iyo muhiimadihii ay lahaayeen. marka laakiin midaan kale aad iyo aaday u xanuun badan tahay. xildhibaanada saaxiibada ah oon garanayo oo qaarkood nolol fiican oo adduunyada iyo meelo kala duwan ay ku haysteen uga soo baxay oo uga soo tegey in ay soomaaliya wax ka bedelaan, wax ku biiriyaan, in ay dhintaan oo weliba gacantaas ay ku dhintaan aad iyo aaday u xanuun badan tahay. aadaanan uga xunnahay runtii. laakiin haddana waxaan leenahay dee waxay u dhinteen wax ka qiimi badan ay ku dhiman lahayn ma jiro, ayagoo u taagan soomaaliya inay dhibka ka saaraan, inay u dhintaan. maalintay ay ilaahay ugu talagalay dhiman lahaa inay dhinteen, laakiin waxay ku dhinteen wax macno leh oo waxa lagu dhintay waxa ugu qiimi badan waan dhihi karno. marka dowladda soomaaliyana haddan tallaabooyin cadcad ay qaaday sidii loo sugi lahaa amniga muxuu ahay xildhibaanada 275 xildhibaan magaalada muqdisho daafaheeda dacaladeeda oo dhan kala degan, baabuurtooda ayaga wato oo magaalada ku dhex socda, lugaynaya, meel walba tegayahay. waad garan kartaa sida ay u culus tahay ilaalinto. laakiin haddana dowladda soomaaliya tallaabooyin cadcaday qaaday si loo sugo amniga muxuu ahay dadka u shaqeeya dowladda, gaar ahaan baarlamaanka. in badanoo ka mid ahi horta waxay propaganda u badan tahay. intii jirtayna hadda wax cadaa laga qabtay. shacabka wada shaqayntiisa hay-adaha dowladda amniga ay la shaqeeyaan aad iyo aad ayay u horumartay. waxaana daliil u ah dadka nooca waayahan dambe ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigaan oo ay ku suurto gashay oo keliya wada shaqaynta shacabka. waa run dagaalkan aan ku jirnaahi mar walba waxaa guulaysanaya cidda shacabka ay la safan tahay,
maantana waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay shacabka soomaaliyeed inay la safan yihiin dowladooda shabaabna muxuu ahay ay dagaalka dhinac uga jiraan intooda badan laakiin cabsi iyo argagax muddo dheer shacabka lagu hayay weli dad badan oo kamid ah cabsida way ku dambaysaa laakiin aad iyo aad aan u hambalyaynaa una bogaadinayaa kuwa cabsidaas inta ka kor maray maanta ku dhiirada inay hay-adaha dowladda shaqeeyaan dadkuna hadda way ku qanceen shabaabkii lasoo qabtaa berri inaan suuqa lagu sii daynayn oo sharciga iyo muxuu cadaaladda waxay qabta la horgeynayo waxaan rabaa dadka soomaaliya horta inaan u sheego wax badan xog la-aan wax badan cabsi iyo kala aamin bixi beri hore dhacay ayaa laga yaaba weli dadka qaarkood inuu kontrole waxaan rabnaa inaan u sheegno maamulada hadda samaysmayahay badankooda horta waa maamulo kumeel gaar ah leanna nidaamkii iyo sharciyaddii dalka federalismka loogu samey lahaa wax badan oo kamida weli way dhiman yihiin dadkeennuna baahida ay u qabaan in xukunka la baahiyo way dhici weyday inay sugaan ilaa sharciyadaas ay ka soo dhammaanayso dowladda federaalka ayadoo raalli garaynaysa dadka kana fikiraysa sharciyaddii in la sameeyo oo wax walboo samaysmayaahi ay sharci ku samaysmaan ayaa maamulada kumeelgaar inay noqdaan ilaa dastuurka laga dhammaystirayo ilaa gudiyada federalismka iyo xuduudaha iyo ay shaqadooda soo qabsanayaan ilaa waxyaabahaas oo dhan intay ka soo dhammaanayaan maamulada horta hadda jira waa kumeelgaar meel ay ku qoran tahay ma jirto statusku waa equal iyo waa kala badan yihiin iyo waa kala xoog badan yihiin waxaasoo dhan waa waxyaalaha commissioneska dastuuriga ah ee dastuurku tilmaamay markay shaqo qabtaan xogta ay keeni doonaan baarlamaanku usoo celi doonaan oo baarlamaanku ansixi doono oo sharci noqon doonto markaas kadibaa dadku doodooda ay ku furan tahay gobolkan iskuma dhigmaan iyo waa kala badan yihiin iyo waa kala waxaysan weli lama gaarinaan leh waa garteen gobolka hadda ugu dambeeya lasoo hadal qaado weli aan la dhisin laakiin maalin dhaweed aad ka shirteen mudug iyo galgaduud in laysku daraa kuwa badan oo gudaha oo isla goboladaas ka tirsan baa ka biyadiiday ood ogsoon tahay xibinaya xeeb iyo mareeg hadday ahaan lahayd dadka qaarkood puntland ba hagu daraato oo puntland iminka maarkano xataa xildhibaanadii federaalka baarlamanka ugu jira ee dib loogu yeedhay oo ay ka shirayaan arrimihii waxay ka yeeli lahayn haddaad soo koobto maxaa puntland ay ka diday oo ugu weyn baad isleedahay wal dee puntland waxay ka diday horta reer puntland iyo hogaanka puntland la weydiinayaa ayaga aad iyo aad u sharaxi karo laakiin anigu waxaan qabaa dhibaato weyn ma jirto wax walba sidii ugu fiicneedee aan u rabnay dabcan nooma ahan waan qiraynaa laakiin waxaan aan samaynaynaahi marna looguma talagelin in masaalixda iyo danaha iyo amniga iyo jiritaanka ama maamul kale ama muxuu ahay dad kale oo soomaali ah wax lagu yeeleeyo ama masaalixdooda lagu hor istaago ama danahooda lagu baabiyo marna looguma talagelin waxaan u arkayno keliya inay yihiin xisaabtan jira dowladda puntland waa dowlad goboleed jirta oo taagan waxaan rabnaa kuwo kalena inay samaysmaan sidii lagu heshiiyey oo iyadoo puntland la dhex joogo lagu heshiiyey puntlandna weligeed ay u taagneed ay dhihi jirta waa in la helaa maamuladii kale ee gobolka bilowgeedii waaye haddii farsamo meel ka khaldan ay jirtana wadahadalaa ka furan waa laga wada hadlayaa wixii horey u khaldame waa la saxayaa wixii aan khaldamin laakiin loo maleeyey inay khaldameenna waa la isu sharaxaya waa la isfahamsiinaya marka anugu cabsi badanna ma arko cilad weynoo jirtana ma arko waxaan leenahay dadku waa fahamka waa lagu kala duwanaa karaa laakiin waa laga wada hadlayaa wixii khaldanna waa la saxayaa wixii inay khaldanayn loo maleeyeyna waa la sharaxaya inaanay khaldanayn waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego xaqiiqada iyo muxuu ahaay waxyaabaha mala awaalka ah oo la sameeyey inay noo kala saarnaadaan soomaaliya waxay ka mid tahay beesha caalamka adduunka ku nool ee casriga ah ee qawaaniinta caalamiga ah ay saytaraysay iyo qawaaniinteeda dabcan soomaaliya waxay ka mid tahay 65 dal oo saxiixday heshiiska badaha ee caalamiga ah soomaaliya shuruuc badan iyo muxuu ahay hore u samaysay waxna way ka dhinaayeen oo ayadoo aan dhammaystirin ay dhacday dalkeenna maanta waan garanaynaa sida xaalufinta badda loogu hayo sida loogu shubo qashinka sida meelo badan ee dalkeena xuduudaheena qaarkood ay hay-ado iyo shirkado kale dalal kale intay heshiis la galeen ay baaris iyo macdan iyo wax ka baarayaan ay wadaan waxaasoo dhan waxaa ugu wacnaaday soomaaliya oo aan dhammaystirin sharciyadeedii biyaheeda maanta soomaaliya sharciyadeedii biyaha way dhammaystirtay annagu cid aan maanta dacwo u qabno oo aan dal ku sheeganayno biyo ku sheeganayno ma jirto marka taa macnaheedu ma waxa way tahay dhul iyo bad ay soomaaliya awal lahayd lama siin kenya lama siin kenya horena looma siin maantana lama siin laakiin
dhamaystir la'aanta oo shuruucdeenni aan si caalami aanan u dhamaystirin ayaa marar badan waxaa keenaysa in lagu soo xadgudbo dhulalkeenna. maanta waan xadidnay, caalamka waa u sheegnay biyaha badda aan leenahay, meesha ay ka bilowdaan, meesha ay ku dhammaadaan iyo sida ay yihiin. waxaan marka aan rabaa dadka soomaaliyed in loo sheego soomaaliya maadaama ay dowlad aan ku meel gaar ahayn oo rasmi maanta ay leedahay, mas-uuliyad caalamiana ay saaran tahay. soomaaliya dad waa la dacweyn karaa sida ayaduba ay dad caalamka u dacweyn karto. haddii cid dacwo noo qabtaa jirtahay annaga weli ma ogine, officially ha noo timaado, hana soo dacweyso, wixii caalamku qabaan kula macaamilena, laakiin annaga xuduudaheenna waan soo koobnay, waan soo oodnay, waanan xadid. waxaan rabaa horta dee waa waajib qaran ka madaxweyne ahaan aniga ay saaran tahay. soomaaliya hanti ay leedahay oo dayacan oo dulka jirtay muddadaas haday jirtay inaan soo celinno. marka tallaabtaas waan qaaday, in badna waa soo celinay, in kalena waan daba joognaa. taasi horta waa sidaas oo ayadu lagamana noqonayo, lagamana gaabinayo haddii alla yidhaahdo. waxa dadka soomaaliyeed ay leeyihiin oo 25 sano ku dhowaad ka maqnaayo maantay ugu baahi badan yihiin, waa la soo celinaya horta. waxaana loo isticmaalaya meelo la ogyahay oo la arki karo. dabcan waxaa loo isticmaalayaa masaalix dadka soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa. waxaan rabaa midda kale oo waxyaabahan la sameeyey oo dacaayadaha ah, adduunyada maanta wax qarsoomi kara ma jiraan. dhaqdhaqaaqa lacaguhu waagii boorsooyinka inta lacagaha lagu qaato lala safri jira way dhammaatay. maanta lacaguhu waxay ku dhaqdhaqaaqaan bangiyo iyo hay-ada caalami oo la yaqaano, raadraacna way leeyihiin. waan jeclaan lahayn dadka dhahayo si gaaraha loo qaatay iyo si barsoon inay soo buruuf gareeyaan, soo caddeeyaan. waa dacaayad, waxba kama jiraan. lacagtii dalka soomaaliya u lahaa lasoo xadiday, lasoo celiyey, meesha ay ka baxday iyo meesha ay taallo iyo sida loo bixiyo kulli waa documented. bangiyo caalamiya iyo bangiga dhexe ee soomaaliya ayaana haya. dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dowladdii xilligii sida nabadda ahay ay transitionka uga soo baxeen oo dowlad rasmi ay u yeesheen, wixii ay rabeen oo waddadii dheereed, safarkii dheereed ku talagaleen waa la bilaabay, waanu socdaa. soomaaliya maanta dowlad rasmi ah waa ka jirtaa. ammaanka dagaal adag oo caalami ah oo aan dowlado naga waaweyn ay ku fashilmeen ama dhibaato kala kulmeen aan ku jirnaa. waxaas dowladda soomaaliya maanta ay ka jawaabtay, dowlado ka waaweyn oo ka hanti badan oo muddo dheer ka jira ayaa ka jawaabi waayay. dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku kalsoonaadaan dowladooda, ayna arkaan waxqabadka. wax waa noo dhiman yihiin, laakiin waxa noo dhiman bas yaanay nala weynaanina, waxa aan qabanayna ha nala weynaadaan aan leeyahay. dowladoodana ha ku kalsoonaadaan. dadka soomaaliyeed waxaa kanoon leeyahay dacaayadaha iyo barbagandada in badanoo dadkeenna ka mid ah marka waxay yaqiineen colaaddii, markii colaadda laga soo baxay ayay cabsadaan oo nabadda loo sii baxay dadaa cabsanaya oo gadaal inay u noqdaanoo colaaddii iyo dowlad la-aantii inay ku noqdaan jecel. marka waxaan kuwaasna ha la soo jiido, hana loo caqli celiyo. soomaaliya way socotaa, dowladdeeduna way sii tarmaysaa, way dhismaysaa. ilaahay idinkiis dalkana qorshooyinka dowladda ay u dejisay oo la yaqaano way ka dhaqangalayaan. haddii ala yidhaha soomaaliyana dowlad rasmi ah oo dowladaha adduunka lamid ah yeelanaysaa mustaqbalka insha allah.